saacadu waa 8 habeenimo xilliga magaalada Muqdisho waxa shaqeynaysa dekada weyn ee magaalada Muqdisho muddo ku dhow 30 sano kadib iyadoo la fulinayo go'aankii golaha amniga qaranka ayaa waxa daafray in habeenkii ay dekadu shaqeyso ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ay weeliyaan wasiiro iyo saraakiil ka tirsan ciidanka farxad iyo guul bay inoo ah inaynu daah furno dekada xamrina 24 saacadood bay inoo shaqeyso anigoo ka wakiila xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan caawa ku dhawaaqayaa inay dekadu 24 saacadood diyaar u tahay inay adeeg bixiso dekada weyn ee Muqdisho horey u shaqeyn jirtay kaliya maalintii ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ku guuleysatay in la ballaariyo adeegyada kala duwan ee dekada isla markaana ay habeenkii shaqeyso kadib cabasho ka timid ganacsatada Soomaaliyeed maadaama ay korortay agabyada kala duwan ee ganacsatadu keenayaan dalka wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Maryan Awees Jaamac ayaa xustay inay guul weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed habeenkii ay dekadu shaqeyso isla markaana oo miradhalay dadaalkii ay wasaaraddu ku bixisay arinta ay runtii ay u soo hoyatay guul ah in ay arkaan dekada Muqdisho oo habeen iyo maalin shaqeynaysa waana rajaynaynaa dhammaan dekadaha Soomaaliyeed in ay sida u howlgalaan waana runtii qorshe inoo degsan qaabka lagu kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya marka runtii waxaan leenahay guul bishaaro iyo gobonimo mahadsan in dekadu ay shaqeyso habeenkii waxa ay qayb ka qaadanaysaa horumarinta dhaqaalaha dalka sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle anagu hadaan wasaaradda maaliyadda diyaar waxaanu nahay customkii iyo baanankii waxa la diyaar yihiin maantay inay markii wax yimaadaan cashuuraan habeenay dharaalka joogan waa cusub oo bariyay oo nolol iyo nabad u bariyay weeye dadka Soomaaliyeedna u bariyay weeye waxaan markaa ku boorinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed in iyagoo degan ka ganacsadaan meeshan mudooyinka ugu dambeeyay waxa xoogaystay ganacsiga kala duwan ee dalka ka ay hormuud u yihiin ganacsada Soomaaliyeed in habeenkii ay shaqeyso dekaduna waa mid sii kordhinaysa ganacsigooda sida waxa yiri wasiirka ganacsiga ee warshadaha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa la go'aamiyay in ganacsatada la siiyo meel access fiican jidad fiican oo ay si hawl yar ganacsigooda ugu wadan karaan marka aad iyo aad baan u faraxsanahay caaw munaasabadan ugu faraxsanahay ganacsatada Soomaaliyeedna waxaanu leenahay oo hadda ay xoogaysatay wax dhoofintu in maragtay dawladdu ay fursad siiso aad baan ugu faraxsanahay mahadsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixisay in dekada Muqdisho ay shaqeyso 24 saac si ganacsada ay ugu fudaato in alaabahooda ay kala soo degaan habeen iyo maalin taasoo meesha ka saaraysa mashquulkii faraha badnaa ee ka jiray dekada oo shaqeyn jirtay oo kaliya maalintii ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay shacabka Soomaaliyeed u fududeyso adeegyada ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay in 24 saac ay shaqeyso dekadu waxa caawa arkaysaan aynu indhaheena ku aragnaa soo wada marnay dekada in amnigii loo baahnaa si ay dekadu habeenkii u shaqeysaa uu diyaar yahay ayadii wax baadhaysay aynu indhaheena ku aragnay mashiinadii kale lagu baadhayay waxyaabaha nabadgelyada iyo amniga khatar gelin kara aynu indhaheena ku aragnay waxa markaa shaqadan diyaar u wada ah kow hadday noqoto dhinacii wasaaradda maaliyadda customkii oo 24 saacadoodba heegan u ah inta muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan in loo shaqeeyo oo ganacsadii uu joogo in dekadu ay u furan tahay gaadiidleydii ayna u xanibnaanin ee rarka hadduu saaran yahay oo waqtigoodii ay dhaqaaqi lahaayeen ay diyaar u yihiin 6 galabnimo habeenkii fiidkii ay dhaqaaqi karaan shaqadoodiina wadan karaan marka guul shacweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed bulshooyinka Soomaaliyeed dawladdiina barbar istaaga adeegaas cusub ee soo kordhay ee diyaarka idin dekada xamar wax kasta oo uga baahantiin habeenkii in la idin qaban karo waxay keenaysaa in loadka maraakiibta soo xiranaya bataan ganacsigii bato dakhligii dawladdu bato mushaharkii la bixin karo amnigii laga shaqeyn karo ciidamada mushaharkoodii la bixin karo adeegii dawladda kala duwan aynu fidin karno waxaan ku soo gabagabeynayaa guul baan waxaan inoo rajaynayaa ku dhamaanteen ba hambalyo hadday booliska amniga ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sugaya amniga guud ahaan dekada waana kuwa u diyaarsan isla markaana u dhameystiran yihiin qalabka lagu baaro waxyaabaha khatarta kuwa amniga sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jenaraal Bashiir Cabdi Maxamed
in ciidanka booliisku diyaar u yahay inuu sugo amniga caam ahaan dekedda waxa soo galaya iyo waxa ka baxa inaannu diyaar u nahay furitaanka dekedda caawaad noo iclaamis in la furo waxaannu suu keennay sugidda amniga halkan qalabkii amniga lagu sugi lahaa oo dhan aydii baaraysay iyo sniifariska mashiinada ahaa labadaba la isticmaali doono waxaannu kaloo keennay baabuurteennii oo tootada ahayd oo gurmadka degdega kuwaasoo iskortaarayn doona sugi doona amniga gaadiidka habeenka halkan ka baxa ilaa ay ka gaarayaan meeshii bakhaaradu ay ahaayeen qorshaha hameenka ay ku shaqaynayso dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa qayb ka ah qorshaha lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka islamarkaana shacabka loogu fudaynayo adeegyada ay dekeddan u hayso waxayna ku timid cabasho ka timid ganacsada halkaa wax kala soo degtaa nasro bashiir cali warbaahinta qaranka dekedda weyn ee muqdisho